cashirkiinii kan ka horreeyey waxaan baranay qaabka loo isticmaalayo while. Hadda waxaan eegaynaa haddaba sida loo isticmaalayo do while. waxaan leenahay markaa do waan isticmaalaynaa markaa console.log xagga waxaan qoraynaa x++. halkanaan ku qoraynaa haddaba while. waxaad arkaysaa inuu sidii oo kale inagu shaqaynayo. haddaan halkan ka dhiga 100 hadda waxaad arkaysaa sidii oo kale inagu shaqaynayo. marka do markaan isticmaalayno waxaan isticmaalaynaa marka hore do bracketkaasaan furaynaa, wixii aan doonayno qornaan qoraynaa, kadib waxaan isticmaalaynaa haddana qoraynaa while. jawaabta intaan doonayno ama shardigan ku xidhayno oo ayaan halkan ku qoraynaa. anagoo shardigan ku xidhnay waxa x intay ka yar tahay ama leeg tahay 100. farqi baad arki karaysaa u dhexeeya while-tan iyo do-dan. farqiga u dhexeeya haddaan doonayno inaan ogaano waxaan ka soo qaadaynaaba inuu yahay x equal 100. 101 inoo fuliy. haddaba waxaad arkaysaa inuu mar keliya inoo fuliyey. waa markaan isticmaalayno do while. haddii aan hadda isticmaalno while-ta annahay noo fuli, waxaad arkaysaa inaan waxba fulin. sababta maxaa keenaysaa tanna kanna inuu fuliyo kanna uu fulin waayo. haddaan halkan ka dhigno 11 amarkaasi ma fulayaa mise ma fulayo? waxaad arkaysaa inaanu fulayn, sababtoo ah kan while marka u horeysa wuxuu eegayaa shaygan aan doonayno qiimihii iyo ujeedkii aan doonaynay ma gaadhay mise muu gaadhin. wuxuu eegayaa marka hore shardiguu eegayaa. shardigaasi hadduu dhowoobo uu sax u noqdo amarkii uu fulinayaa. shardigaasi sidii la doonayay hadduu noqon waayana amarkaa ma fulinayo. cagsiga do hadday tahay do marka hore waxa uu samaynayaa horta amarkuu fulinayaa. markuu fuliyo kadib ayuu hubinayaa shardigii la doonayay inuu dhawoobayo in kale. markaa hadduu dhawoobay wuu soo celinayaa, haddaanu dhawoobinna wuxuu leeyahay ka joog ma fulin kartide. marka farqiga u dhexeeya do iyo while waa kaas. laakiin sida kale saddexdoo dhammaantood waa isku mid. for iyo while iyo do while. farqiga u dhexeeya while iyo do waa farqigaas oo keliya oo ah in marka hore while ay shardiga eegayso inuu dhawoobay iyo in kale, kadib amarka ay fulinayso. do-na waxay marka hore amarkay fulinaysaa ugu yaraan hal mar, kadib markaasay eegaysaa inuu shardiga dhawoobay iyo in kale. haddaanu shardiga dhawoobina mar labaad ma soo celinayso, hadduu dhawoobay shardigaasina mar labaad bay soo celinaysaa.